habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caawa iyo caalamka waxaan ahay farxaan maxamed jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin waa Soomaali careysan oo maanta isugu soo baxay banaanka hore ee madasha uu ka dhacay shirka shidaalka ee Soomaaliya ee London wararkii ugu dambeeyay ee shirkaasi ayaanu idin haynaa falanqayn iyo waliba waraysiyo la xiriira dooda caawana waxaanu gabi ahaanba iyo barnaamijka ku eegi doonaa shirka shidaalka ee Soomaaliya ee London ee maanta dhacay muxuu yahay wax lagu soo bandhigay muxuu soo kordhin karaa shirkaasi kala soco BBC News Somali telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada halkani waa London barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka waxaan ku bilaabaynaa magaalada London oo maanta uu ka furmay shir lagu soo bandhigay baaritaan laga sameeyay shidaalka xeebaha wadanka Soomaaliya sida ay sheegtay hay'adda baaritaanka sameysay ee Spectrum waxa kulanka lagu soo bandhigay ilaa 50 qayb oo ka tirsan 173,000 oo kilomitir oo ku yaala xeebaha wadanka Soomaaliya sawirkan waxa uu muujinayaa oo ka mid ahaa mid sawirradii lagu soo bandhigay shirka maanta baaxadda iyo waliba inta ay la eg tahay dhulka baaritaanka lagu sameeyay ee xeebaha wadanka Soomaaliya hadaba siyaasiyiinta Soomaaliya ee dawladda mucaaradka ku ay ka soo horjeeda waxay ku tilmaameen shirka inuu yahay mid lagu xaraashayo shidaalka Soomaaliya taasi oo dawladda federaalku ay beenisay wasiirka macdanta iyo batroolka Soomaaliya ayaa BBC-da kula hadlay xarunta shirku ka dhacay maanta waxaana uu yiri markhaatiba ummadda Soomaaliyeed maanta ka noqotay dhammaantood meel kastoo joogaan adigan markhaati baad ka tahay meeshan waxaa loo yimid oo kaliya bandhigid macluumaad laga ururiyay badda Soomaaliya ee looma imaanin xaraash iyo in contract lagu saxiixo wax saxiix ma jiraan ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegaynaa hantidooda gacan aamin ay ku jirtaa ayadoo aan sharciyadii iyo wax kasta loo dhamaystirinna cid saxiixaysa ma jirto baaritaankii la sameeyay sahankii la sameeyay wuxuu muujinayaa in kayd shidaal Soomaaliya leedahay laakiin waxaas waxay cadaan karaan markii inta cid ka shaqeysan loo helo baarta laga soo saaro in shidaalkaas uu yahay shidaal ganacsi gali kara iyo in kale wili ma dhihi karo 100% waan hubnaa shidaal Soomaaliya leedahay laakiin waxaan ku taaganahay jidkii aan ku tagi lahayn in Soomaaliya ay shidaal leedahay maamulaha shirkadda Spectrum oo soo qaban qaabisay shirka soona bandhigtay baaritaankan Jan Schoolmasters ayaa BBC-da waxa uu sheegay in kulankan uusan xaraash ahayn balse uu yahay mid caalamka lagu tusay buu yiri baaritaanka shidaal ee Soomaaliya Spectrum is not auctioning anything. It's ultimately Spectrum waxna ma xaraashayso arintaasi waa arin ay ugu dambeyn dawladda Soomaaliya go'aan ka gaari karta mustaqbalka laakiin anaga waxa aan sameynayno waa in aan tusno meelaha aan isleenahay petrol ayaa ku jira waana macluumaad ay shirkadaha oo dhan doonayaan inay ogaadaan oo ay eegaan in iyaga ay suurtagal u tahay inay maalgashi sameeyaan shuruudaha ay ku iibsan karaanna waa kuwa maanta halkan laga sharaxay waxa ay uga dhigan tahay haddii ay maalgashadaan wadanka iyo haddii ay qayb ka iibsadaan sida uu noqon doono wax soo saarka batroolka iyo canshuuraha la xiriira balse dadka ka soo horjeeday shirka ayaa waxay maanta isugu soo baxeen banaanka hore ee hoteelka uu shirku ka dhacayay oo ah bartamaha London kuwaasi oo ku dhawaaqay Soomaaliya in aysan xaraash ahayn waxaan u aragnaa inay tuugooyin maafiya iskugu imaatay waxay hadda ka bilaabatay inayna soconayno boqolka sano soo socdo waxaan rabnaa ilmaheena in aan u badbaadino dhaxalkooda dhaxalka waqtigeena anaka kaleeto buu dhamaana 100 sano ma gaarayno laakiin ilmaheena waa inaan u saaf garaynaa wadankeena is finish سلام بسم الله الرحمن الرحيم halkan waxa soo maanta batroolka Soomaaliya oo dhacayo oo dad yar ay rabaan kaligood inay qaataan ay wadanka wax kasta ay xaalufiyaan badii gateen wax kasta ay gateen Soomaalida halkan taagan qabow guriyeen ilmaheena ka nimid waxa u nimid wadankeena inaan difaacno oo ka okay walaal halkan waxaan maanta isku mudaraad kaga soo horjeedna hantidii Soomaaliyeed oo la xaraashayo oo wax sharci ah u degsan aanay jirin sidaad og tahay sharcigii shidaalka lama soo saarin baarlamaanka lama soo marsiinin
baarlamaanka waa afduuban yahay Soomaaliya kama jirto sidaad ogtahay hadda xilli xadarka lagu jiro wax xorriyad qowl kama jiraan maamul goboleedyada waa la burburiyay shidaalka Soomaaliya resource-ka Soomaaliya waxa lagu soo saari karaa wax loo dhan yahay sidaa darteed waxaan u aragnaa group yar oo ayaga danahooda u socdaan oo Soomaaliya danteeda aan ka mathalayeen inay yihiin haddaba si aan wax badan uga ogaano shirkaasi waxa iminka stuudiyaha igula sugan waryahayaga Cabdiraxmaan Bidhaan oo shirka maanta ku sugnaa Cabdiraxmaan bal noo faahfaahay shirku sidoo u dhacay farxad sidaad arkaysa shirku si habsami loo dhacay hotel weyn oo halkan inoo dhow baa lagu qabtay oo ay ka soo qayb galeen shirkadaha shidaalka iyo madaxda sare ee dawladda Soomaaliya oo ka mid yahay wasiirka macdanta iyo gudoomiye xigeenka baarlamaanka federaalka Soomaaliya marka shirkaasi wuxuu shir habsami loo dhacay sidaad arkaysayna dhanka kalena iyadana dadkii ka soo horjeeday iyaguna hawshooda wateen oo dibadda hotelka ka banaan baxayeen maxay marka dadkan ku banaan baxayaan maxaa laga didsan yahay dadka sida aynu maqlaynay qaarkood dadku farxaan waxa ka didsadeen shaki baa jira in Soomaaliya si jaban laga yaabo in shidaalkeedii shirkada ku qaataan oo siyaasiyiinta Soomaalida ee dawladdan ku jira matalan ay lacag qaataan wax la hubo maaha waa shaki baa jira dad badan waxa is leeyihiin siyaasiyiinta Soomaalidu musuq inta badan faraa la galaan marka cabsidaas ay jirta marka waa tagtay meeshii ma waxba lagu xaraashayay mise waxba lagu soo bandhigay indhahaad ku soo aragtay anigu wixii aanu soo aragnay waxaad farxaan in meeshaasi lagu soo bandhigay xog ku saabsan shidaalka Soomaaliya ee shirkadda Spectrum ay baadhay laakiin si saad la socoto arrimaha shidaalku waa arrimo badan oo siyaasad badan u baahan oo dawladaha ay ku shaqaleeyeen shirkado waaweyn laakiin maanta shirkaasi gabi ahaanba wuxuu ahaa intii aanu BBC-du ay joogtay wuxuu shir lagu soo bandhigay xogta shidaalka ee Soomaaliya aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Bidhaan oo nooga warramayay shirkaasi haddaba shidaalkan Soomaaliya la sheegayo ma yahay mid jira marka horeba Soomaaliya shidaal ma ku jira guud ahaanba iyo marka la eegaba deegaanada Soomaalida waryaha BBC-da magaalada Hargeysa Sadiq Maxamed Burmad ayaa su'aashaas waxa uu weydiiyay wasiirkii hore ee macdanta iyo shidaalka ee Jamhuuriyadda Iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday Somaliland Xuseen Cabdi Ducaale walaal horta marka la shidaal baaynu maxaa shidaal aynu ku haysanaa dhulka waxa weeye waa inay wixii noqdaan wax la xaqiijiyay oo la sugay in ay intaasoo barmiil ama foosto oo shidaal meesha ku jirto oo laga soo saari karo meesha kaliya maanta aynu ognahay la xaqiijiyay in ay maalinka mataas tijaari ku jirto waxa weeye $5 trillion oo cubic feet oo gas ayaa ku jirta moogtay cariga ee Soomaalida Itoobiya degto iyo ilaa dhowr iyo 10 milyan oo moogtay yani petrol condensate wax la yiraahdo gas moogtay liquid waxaan kale waxa weeye wali meeshii wax eelalo laga qoday oo petrol ka soo baxo discovery la gaaray wax la yiraahdo moogtay iktishaaf ama discovery la gaaray ma jiro marka kaliya aad xaqiijin kartaa inaad petrol tijaariya meeshii ka heshay waxa weeye markaad bilowdo ceelashii qodaada koodii bilowdid markaad ceelkii ugu horeysay qodo haddii aad markaa shidaalba ka hesho tijaari oo la yiraahdo this is a commercial discovery wax la yiraahdo man halka ku harimaysa shirkadu waxa weeye markaa waa inaad xajmiga goobta petrolka ku jira xajmigeeda qiyaastaa oo eegtaa waa markaa ceelal badan oo kale ku dartaa meeshii dhamaysa inaad magtay fahanto inta petrol ku jirta diraasado markaa ku samaysaa kaydkan aad heshay inta xajmigiisu yahay inta aad ka soo saari kartaa intay noqonayso waxaasina diraasado badan bay qaadanaysaa iyo ceelal badan oo la qodo markaas bay factual noqonaysaa inta kale waxa weeye sharciga dee moogtay yani liisanada haysta iyaga dacaayada samaysta oo oranaya halka 200 oo bilyan ba ku jira moogta aan umika aan wadno waxay doonayaan inay ku xayisiiyaan shareeskooda iyo magaranaysa dee sare ugu qaadana moogta dee shareholders investment kuma moogta sare ugu kaco laakiin reality-gu marka imanaysa waxa weeye marka aad bilowdo ceelashii ee aad test garayso ceelashii ee aad daraasayso aad xajmi markaas ma ogaan kartaa saliidda ku jirta meesha Soomaaliland iyo Soomaaliya muran siyaasadeed baa u dhaxeeya Soomaaliya gudaheedana khilaafyo badan baa ka jira iyadoo waxa soo dhami jiraan shidaal ma la baari karaa ama Soomaaliland xageega ama xagga Soomaaliyaba Soomaaliya waqtigan xaadirka waan dee la socdaa inay maalinka maanta bid round wax la yiraahdo ay ku jiraan oo maantadan ay ka furantay muxuu ahay magaalada London bid round kaasi wuxuu aan sidaan dee anigu dee moogtay ka akhristay waxa weeye waa offshore Soomaaliya ayaa moogtay bid round ka lagu bixinaya ee wax onshore oo dhulka gudihiisa ah maaha laakiin anigu walaac baan ka qabaa runta wanaagsan waayo waxa weeye dee marxalad weyn baynu inagu maray Soomaaliland ay martay oo ka soo gudubta caqabad badan oo aad u fara badan waxa ugu horeeya waxa weeye dadka aan meelaha dadku nool yihiin aad wax ka baadhiso haddaydan aad wixii fahansiin oo aanad waqti la qaadan oo aanad wixii aqbalin waxa uu ay qaadanayaan moogtay shirkad weyn oo ajnabi wadato moogtay dhowr dhinac ay ka shaqaysanayaan bay u qaadanayaan
marka waa inaad marka hore intaanad waxba bilaabin aan dadkii horta kalsoonidooda aad heshaa taa anigu ma arko markaa yani inaynu hal marxaladda ay gaadhay Soomaaliya inay gaadhay oo martay hanatay kalsoonidii dawladda meesha joogta ay kalsoonidii hanatay ma garanaysaa deegaanada wax laga baarayo imka deedo offshore waxa weeye ciidamada halka ma gaari karto waa bad weeye laakiin baddaas markay wax laga helo waxa weeye barigu ma looga soo noqonaya wixii laga process gareynaya bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa kooxaha badbaadada ee magaalada Istanbul ayaa baaraya burburka dhismo 8 dabaq ah oo dumay ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay qaar kalena waa ay ku dhaawacmeen iyadoo laga cabsi qabo in dad kale burburka ay ku hoos jiraan maantana gabar 5 jir ah ayaa laga soo badbaadiyay oo isbitaalka loo qaaday 19 saac kadib markii dhismahaasi uu burburay koox diblomaasiyiin oo reer Canada oo xanuunsaday markii iyaga oo ka hawlgalay wadanka Cuba uu ku dhacay xumad loogu magac daray Havana syndrome ayaa waxa ay dacwad ka shaqeynayaan oo ay ku dacweynayaan dawladooda waxana ay sheegeen in si ula kaca loo bartilmaameedsaday iyaga iyo qoysaskooda waxa ku dhacay madax xanuun wareer iyo sanka oo dhiig ay ka keeneen waxana ay ku eedeeyeen dawladda Canada in diblomaasiyiintaasi ay wax u qaban weysay dawladda Cuba waa ay beenisay in wax luga ay ku leedahay kooxaha waxbaara ee baaraya burburkii diyaarad ku dhacday channelka Ingiriiska ee biyaha hoostooda ayaa wax la sheegayaa in ay heleen meydka qof waxaana la sheegayaa in diyaaradaasi ay sidii ciyaaryahanka Emiliano Sala lama oga in uu yahay ciyaaryahankaasi Argentina u dhashay iyo duuliyihiisii David Ibbotson meydka la helay waxay ka soo duuleen Francisco iyagoo u socday naadiga cusub ee Sala uu ku biiri lahaa ee Cardiff 22 January marwal waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook fadlan waxaad raadisaa BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli karto muuqaalo falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram waxay noo soo socda oo qaybta dambe ee gabi ahaanba barnaamijka caawa aanu ku eegi doonaa shirka shidaalka ee Soomaaliya ka dhacay waxa wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale balan xasuusiyo qodobada wararka caawa ugu waaweyn waxay ahaayeen Soomaali caraysan oo maanta isugu soo baxay banaanka hore ee shirka uu ka dhacayay shirka shidaalka ee Soomaaliya ee London madasha uu ka dhacayay gabi ahaan barnaamijka caawa isaga ayaanu ku eegaynay shirkaasi doodana aanu ku qaada dhigaynaa haddii marka hore hadba aanu guda galno dooda magaalada London waxa lagu soo gabagabeeyay hadaba kulankaasi ku saabsanaa baaritaanka lagu sameeyay shidaalka Soomaaliya dad badan ayaa shirka mucaaraday hadaba waxa igala qayb galaya dooda caawa stuudiyaha igula sugan Cabdisalaam Guleed oo ah qabiir xagga amniga ah oo ka faalooda iyo waliba Dr. Xasan Cali Xuseen oo isna khadka Skype-ka uga jira wadanka Sacuudiga oo ah nin macallin sare oo hay'adda Aramco la shaqeeya tobar sare ah marka hore waxaan ku bilaabayaa Dr. Xasan Cali Xuseen kolay shirkii horan waan xasuustaayo Soomaaliya gaaska iyo shidaalka laga hadlayay waa joogtay 5 sano ka hor London marka waxaan maanta la soo bandhigay markaad eegto Soomaalidu dad badan baa isweydiinaya waxay leeyihiin marka horeba shidaal wadanka horta ma ku jiriyaa bal sharax si kooban bismillaah waa mahadsantahay Farxaan shaki kuma jiro Soomaaliya haddii laga eego jawiga guud ama geologiga East Africa iyo kan Carabta xiriirka aan la leenahay geologiyada
waxay u badan tahay inuu ku jiro hase yeeshee sida aan mar hore sharxay Soomaaliya baaritaan dhab ah lama samaynin ama ha noqdaan onshore-ka bariga ama offshore-ka badda baaritaan rasmi lama samaynin hadda marka midkan hadda la sameeyay mid dhaba ma yahay marka mid dhaba uu yahay oo shirkaddan Spectrum waxay samaysay geophysical exploration ama data collection oo muddo xooga sanad ama ka badan 2 sano oo kale ay waday waana haddaad eegto wadamadan sida Kenya badeeda iyo midda Mozambique badeeda labadoodiba waxa laga helay natural gas marka waxa shaki ku jirin in Soomaaliya ay sidaa la mid tahay oo la aaminsan yahay hase yeeshee xogtan rasmiga hadda la ururiyay ee maanta lagu soo bandhigay London waxay tusaysaa in ay rajada aad u sareyso in batrool laga helo waan gartay markaad fiiriso aqoontaad u leedahay xogtan marka maanta la soo bandhigo leedahay waa mid rasmi ah ma lagu qaadan karaa marka go'aan in Soomaaliya laysimadeeda lagu bixiyo laguma qaadan karo yani hatta haddii aad loo xaqiijiyo in batrool ku jirto laguma qaadan karo in Soomaaliya shatiyadeeda sidaa fudud loo bixiyo mana filaayo dawladdan hadda joogta inay sidaa ugu degdegayso iyadoon shuruucdii batroolka sharcigii kale bay'adda ama environmental law iyadoo aan la helin maaragtay garyaqaano aqoon-yahano ku takhasusay muxuu ahaa cilmiga batroolka iyo qaanuunka yani waxa hor yaala maaragtay caqabado badan ama waxa u baahan arrimo badan in laga xalliyo arrimo badan baa in loo xalliyo u baahan baa tiri waan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa isagana Cabdisalaan Guleed oo studio hayla jooga Cabdisalaan shirkana maanta waa joogtay oo ka dhacay London oo goob joog baad wahayd waana aragtay wixii lagu soo bandhigay markaad eegto marka Dr. Xasan waad maqlaysay hadalkiisii maxaa adiga kaga baxay waxaan shirkan isaaka subaxii hore tagay 3 saac baan tagay waxba ii dhaafin ujeedada ugu weyn u tagana waxay ahayd inaan la socdo waxa meesha ka socdo aan joogto u ahaado indhahayga marqaati u noqdaan wixii meesha lagu soo bandhigay dhamaad ilaa bilowgii wuxuu ahay waxa ay aragtay sida uu hadda Torru sheegay shirkaddan la yiraahdo Spectrum oo sheegtay in 3 sano baaraysay shidaalka Soomaaliya offshore ay ka baaraysay dhulku aadan cabir ahaan markii la yiraahdo maapka galmudug yara xogaa ka sareeya oo Puntland aad u gaarsiisnayn ilaa xuduudda Kenya dhinaca Kismaayo gadaasheeda iyo Lamu dhulka ku xiran ay intaas ka baartay maapkii soo bandhigtay ku jiraan dhulkii Soomaaliya Kenya la isku hayay badda dhinaceeda ku saabsan laha shidaal baa ku jira labada wadan dacwad uga socotay waxa hadda juqraafiga maapka ay haddaad fiiriso wuu ku jiraa laano qaabkii maapkan Soomaaliya u soo saxeen waa sidii Soomaaliya u cabirtay qaabkii Soomaaliya u rabtay badda u cabirtay waay qaabkii Kenyana waa ay dhaafeen wax badan til waxay u tahay on the right of Kenya xaggeeda markaad fiiriso marka waxaad maraysaa qaabkii Soomaaliya ay shalay u doonatay ay u rabtay ugu doodis inuu maapku u dhacay marka Cabdisalaan adigu waxaad qabiir ku tahay arrimaha xagga amniga Soomaaliya xaaladana waa ka warhaynaa iyo wixii soo maray wadanka iyo hadda waxa shidaalna dhaqaala ku jira wixii meeshii ka soo baxaya xagga amniga marka walaac ma kaaga muuqda markaad ka eegto waa ka muuqda walaac yani waxa weeyaan meelaha adduunka markaad fiiriso shidaal laga soo saaro kheyraad laga soo saaro iyadoon amni jirin ama ay wax isku xiran oo dadka ka dhaxeeya oo ilaalinay aysan jirin dhibaatada ay leedahay waxa kamid ah in ceelasha ay meel gaar ah lagu ilaasho shirkada gaar ah ay maal gashtaan ceelashas ilaashtaan ayagoon wadankii kala dan kala hayn way dhacdaa in la qarxiyo oo dhibaato dhacdo la weeraro sida hadda Nigeria meelaha ku qaarto Delta regionka la yiraahdo waad aragtaa laakiin haddana waxaan qabaa Soomaalidu way baahan tahay baahiya jirta taariikhdana waxa la dhahay Soomaaliya qayr baa hoos yaala marka in la baaro waxa la yiraahdo ukunta iyo doorada yaa soo hormaraya marka waxa in shidaalka horta tan la baaro cilmi baaris lagu sameeyo la yiraahdo waxaanad heesataan isaad u maamulaysaa iyo in marka hore sharci laga dejiyo la yiraahdo ka bacdi aan baarana shidaalkii inuu noo yaalo in kale I think labadaas qaybood ay is agyaaleen waan gartay Dr. Xasan waan siinaya khadka ku jira Sacuudiga Dr. Xasan waad maqlaysay xagga arrinta amaankana waa laga hadalhayaa oo Soomaaliya inkastoo dhulkii aysan ahayn badii bay waxa la baarayo dad fara badan waxay ka muujinayaan oo maanta xitaa banaanbax ku sameynaya London shidaalkan Soomaaliya waa la xaraashiyaa bay leeyihiin marka dawladda Soomaaliya ilaa intee bay ay weydiisan kartaa percentage marka la yiraahdo markaad barbar dhigto wadamada kale Afrika waad mahadsantahay Farxaan intaan su'aasha u galin mudaharaadka ama banaanbaxan waan maqlayay shirkana hadda sida ku cad ama meelaha lagu qoray
waa bandhig la soo bandhigay sidoo Cabdisalaam uu kulli marqaati ka yahay daatadii ay soo ururisay Spectrum aana shirka qaban qaabisay iyaduna waxay doonaysaa malaayiin lacagna way ka gashay daatada ama xogta ay soo ururisay waxay doonaysaa inay iibiso marka waa inay shirkado badan ay casuuntaa ay qalqaalisaa ay tustaa haddii mustaqbalka inay noqoto Soomaalidu inay maartay diyaar noqoto inay marka ay iibinayso marka daatada ma Spectrum ba marka iibinaysa daatada mise xagee ka soo galaysa dawladda Soomaaliya haddaan se su'aasha kugu celiyo intee ay percentage tahay inay Soomaaliya ka qaadato dibashada loo soo saarayo والله تا waxay ku xirantaa dhibka jiro farxaano Soomaalida batroolkii sharciga batroolka ay samaysatay 2008 kii la sameeyay oo kumeel gaarka waa la baabiyay mid cusub baa la sameeyay golaha wasiirada way maartay way approve gareeyeen ama way saxiixeen wuxuu hor yaalaa hadda golihii baarlamaanka isagiina wali go'aan kama gaarin sharciga bay'ad wali diyaar ma aha waxa kaloo meesha ka maqan ma jiraan khubaro Soomaaliya dhanka geologiyada ama dhanka kale diyaar ma jirto marka maanta sidaan u fahmay xataa aan xog ahaan hoos u wareystay waa un soo bandhigid la tusayo shirkadihii caalamka dalalka marka eegto South Sudan oo kale hadda wati shidaalka loo soo saaray wadamo fara badan oo Afrika marka eegto ilaa inta celcelis ahaan marka hadaan kugu celiyo su'aashaas sida percentage ahaan hadaan ku soo gaabiyo sida caadiga ah Sacuudiga oo kale markii 80 sano 90 sano ka hor markuu Mareykanku u soo saaray waxay qaadanayeen 5149 يعني كونتون يكون يفكر سجال بكلا قادنين intaasay kala qaadanayeen ama way ka badnaan kartaa ama way sida hadba heshiis ku dhaco laakiin su'aasha markale waxay dana taagan tahay wadanka heshiiska la ay shirkadaha la galayaan waa inuu yeeshaa sharcigii batroolka waa inuu diyaar u ahaadaa oo sharciyadii badan diyaar u ahaadaa tan kale aan ku dari lahaa wax yar aan ku dari lahaa mudaharaadka maanta banaanbax maanta dhacayay dawladdu waxa ka maqan oo kula talin lahaa inay public relationka ama dadweynaha Soomaalida kuwa gudaha iyo kuwa dibaddaba ay u bandhigtaa oo ay qancisaa ay ka dhaadhicisaa laakiin haddii ay ku eedeyso wax walba siyaasiyiin kaliya waxa weeye iyagii dadweynaha way kala go'ayaan waan gartay Dr. Xasan waxaan siinayaa Cabdisalaam qaybaha kala duwan sidoo sheegayo in la qanciyay ma kula tahay su'aasha rabeen kale in ku weydiin waxa weeye wuxuu yiri in xilligaas uu ka hadlay Sacuudiga oo kale Soomaaliyana hadda sharcigii wata mar soo hadal qaadaysay ma u diyaarsan tahay Soomaaliya hadda waxaas leeyahay Soomaaliya waxay u diyaarsan tahay bijirinba at the moment waqtiga hadda jira Soomaaliya waxay u diyaarsan tahay ama de wax weel oo u diyaarsan haddii shaqo noqoto iyo haddii awood noqoto midna ma jirto laakiin waxaan isleeyahay wadankiina wuu jiraa dhaqaalihiina way jiraan baahidiina way jirtaa dad expert iyo internationalna way jiraan oo la soo kireysan karo hadda shirkadan waxay sheegtay inay 3 sano hawshan ka shaqeynaysay haddii marka shirkadan ay soo bandhigto waxa Soomaaliya ay heli karto Soomaaliduna ay kireysato khubaro loo baahan yahay oo de haddii sida uu doctorku sheegay la iibin karo Soomaaliya dhaqaalaheedii iyo resourceska ay haysato waxaan isleeyahay wax ku jaban ma laakiin de Soomaaliya wax ku maamahada nin mara guntasho xun inuu wax qarsanayo loo malay dawladii de ma hadasho waxay sheegaysana ma aragno marka de waxaan laakiin taas marka laga soo tago in waad ogtahay Soomaaliya wali isma haysato maamulo kala duwan baa jiro wadanku waa federal in sidee waxa soo dhan la isugu keenaya baad isleedahay marka haddii sida hadda maanta meesha ka muuqato oo runtii aad u qurux badneed qaabkii u soo bandhigaan haddaad fiiriso waxaan isleeyahay waa cilmi Soomaaliya ka maqnaay waa data Soomaaliya ka maqnayd oo aan isleeyahay dhaxalgal waa Soomaaliya sida loo maamulayo iyo sida loo qaybsanayo iyo xaq iyo sida loo kala qaadanayana waa mas'uuliyad hortaalo maamulka maanta yaala baarlamaanka maanta yaala iyo siyaasiyiinta Soomaaliya hal su'aal baan xasan ma ku soo maxaad ku talin lahayd Soomaaliya se goorma suurtagal ay tahay in shidaal ay leedahay Soomaaliya ay baac geyso wallahi in marka hore dawladdu way dadaashay road showgan ama soo bandhigadan ay sameysay deetada la soo ururiyay inay caalamka tusto inay caalamka tusto in ay ma aragtay wadamada dariska ah sida Uganda iyo Kenya iyaguna sida oo kale batroolka iyagana Paris ku wada inay soo bandhigtaa waa wax laga maarmaana dawladdu waxay ka gaabinaysaa dadweynaha inay marka hore qancisaa oo intay shirkadaha intay u dhigan lahaayeen inay tustaa marka waxaan dhihi lahaa soo saarista Soomaaliya in la soo saaro soo saarista shidaalka waxa ka horeeya marka hore in la diyaar garoobo sida Cabdisalaam sheegay wax diyaar ma leh shuruucdii oo dhan aad iyo aad baad maasan waxa dhan diyaar ma aha waad maasantahay Dr. Xasan adiguna waxaad qabtaa in la diyaar garoobo anu waxaan qabaa in Soomaaliya u baahan tahay waxa maanta la qabanay laakiin in la diyaar garoobo waajib saaran inay tahay dadka mas'uuliyadda hay
aad iyo aad baad mahadsan tihiin labadiinaba Dr. Xasan Cali waan ku mahad celinaya adiga Cabdisalaan Guuleed adiguna aad iyo aad baad mahadsan tahay inta ayaanan ku soo gabagabaynaynaa daawadayaal idin lahaantiinba barnaamijkii caawa oo aanu ku eegaynay shirka shidaalka ee Soomaaliya ee London ka furmay maanta inta aanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba waxaan idinkaga tageynaa sidaasi habeen wanaagsan Thank you.